ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 28 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qayb galay tartan quraan akhris ah kaas oo maamulka jaamacada Jaziira ee magaalada Muqdisho uu qabtay ardayda jaamacada dhigata ayaa waxaa la guddoonsiiyay ardayda kaalmaha hore ka galay abaalmarino isugu jira lacag iyo shahaado sharaf. wiilasha waxaa kaalinta koowaad u galay Cismaan Sheekh Maxamed halka gabdhahana ay kaalinta koowaad u gashay Xafsa Xasan Cabdullaahi Maxamed Xamuud madaxa ardayda ee jaamacada Jaziira ayaa sheegay in tani maamulka ay u tahay farxad. marka maanta waxaan u fadhinaa halkan u joognaa inaan abaal marino ardaydii ku guuleystay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad ayadoo abaalmarintaas ay ahayd abaalmarin lacageed oo horey loo iclaamiyay oo la dhijiyay abaalmarintaas oo kale ahayd ardaygii kaalinta koowaad ee ku guuleysta qaybta wiilasha inuu leeyahay lacag gaaraysa $500 kaalinta labaadna wiilasha 300 kaalinta saddexaadna wiilasha 200 sidaas oo kale qaybta gabdhaha kaalinta koowaad gabadha gasha isla sidoo kale waxay leedahay $500 kaalinta labaadna waxay helaysaa 300 kaalinta saddexaadna waxay helaysaa $200. gudoomiyaha jaamacada Jaziira Professor Salaad Ibrahim Geedow ayaa waxa uu tilmaamay in ardayda ku tartantay Qur'aanka Kariimka ay si wanaagsan u soo barbaariyeen waalidiintooda kuwaasna ay mudan yihiin in loo mahadceliyo. marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii hawshan adag soo qabtay maaragtay taxkiimka sameynayay maalin kasta u fadhiyay saacado fara badan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardaydii ka soo qayb gashay tartanka oo runtii muujiyay karti iyo xifdigooda inta ay awoodaan muujiyay ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guud ahaan. sidoo kale waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa ardaydii ku guuleysataan u hambaliyaynayaa hambalyo ayaan leeyahay waxa aad ku guuleysateen waxa weeye qur'aanka kariimka ah waalidkii idinku soo tarbiyeeyay iyo macallinkii idinku soo tarbiyeeyay ayaa aad iyo aad u mahadsan. ugu dambeyntii waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyay dhammaan ardayda ka soo qayb gashay tartanka quraan akhriska kaas oo ah kii ugu horreeyay ee jaamacada Jaziira ay qabato.